kaalinta maanta ha iskarin indiigo kurbayuusan kugu ridin kelmadaheena qosolka kuleel qaasa ha u arag barnaamijka kaftanka isboortiska waa barnaamij ahadlaha wuxuu soo galaa 7 fiidnimo saacadda geeska Afrika kabtaanka xaalku ka xun yahay ee damul jadiid xasan sheekh maxamuud ayaa isbuucan kulamo kooxdiisa la ciyaartay naadiyada faca weyn ee Warshiq United Gurceel City FC Daynile duqan Facebook dhawaan loo sameeyay ayaana ku qanciyay kooxda Warshiq United in laacibkoodii Mungab boos looga daydayo doono xerada tababarka xulka ee Villa Somalia halka Gurceel City aqbashay daayirkooda Kofi in loo xiray kabtanimada kooxda Immigrationka inkastoo naadigan mar dambe la ciyaar bartay xulkii Ethiopia cabasho dheeraad ah wataan horena kooxda FC Daynile ay u dalacsiyay kooxaha heerka koobaad markii weeraryahankooda saftay 300 ee kulan gaaf oo loo dhiibay hogaanka Nisa taas oo ka dhigan in naadiga si toos ah u ciyaarto Champions League tan iyo 1970 kooxda shabaab ayaa waaberigii saakay kulan ay la ciyaareen naadiga CID-da Muqdisho shabaqa soo taabtay 2 jeer ciyaar soo gashay 9 subaxnimo xilliga geeska Afrika kooxdan takbiirta ku gashay ciyaarta ayaana ku bilowday shaxda 3-2 xilli labada weeraryahan oo iska soo hormariyeen ay baasteen kubad holaca halka daafacyada dambe ee garbaha si kadisa uga soo xaroodeen inta la xaqiijiyay 9 laacib oo ka tirsan ciyaartooyda labada naadi ayaa macsalaameeyay horyaalka dunida sitimaankii hore ayayna ahayd markii laacibkii hore ee federaalka Saalax Badbaado isna si kadis ah seerjin jannada uga hor raadiyay gigada aadan cadde xidigtii hore ee reer Holland Laki Xaaji Wacays ayaa heshiiska shakhsiga la gaartay milkiilaha TV-ga Sportska Universal Axmed Abibakar wakiilka xidigtan ayaa inoo xaqiijiyay in heshiisku uu qayb ka ahaan doono sidii laacibadan ay ku yartahay daawashada YouTube-ka boos joogta looga siin lahaa TV-ga si muuqeeda ay u baahiso laacibadan daada ayaana boos ka heli doonta kooxda Abibakar maadaama taajirkaasi bajiyaha jecel uu ku faraxsan yahay inuu helo xidigtan u hanqalta jeebkiisa xidiga fanka Idlayare ayaa loo diiday fiisaha dalku galka Switzerland xilli laacibkan ku soo hana qaaday kabalyeeriga uu qorsheenayo inuu show ku qabto dalal kamida qaaradda Yurub kaamirooyinka qarsoon ayaana soo bandhigay xidigan oo dacaska iska siibaya mar uu galayay safaaradda Swiss-ku ku leeyihiin magaalada Nairobi taas oo shaki gelisay mas'uuliyiinta kiiskiisa rogrogay Garissa Sports ayaana qabta in laacibkan uu wasaqda u diidanaa safaaradda walow cadaankii uga shakiyeen argagixisa fiisa doon ah xidigteeda barqad ayaa jebisay iskoorka goolkulaadka beenta ee dhanka Snapchat-ka laacibadan aan laysanka haysan ayaa barteeda Snapchat-ka soo dhigta muuqaal ay caruurteeda ugu tilmaamayso gaari aysan milkiyadiisa lahayn iyadoona aaminsan in dadka nacab ku badan yihiin dunida ay daawanayaan Snapkeeda 40 jirtan dhuunta ka heesta ayaana daqiiqado kadib dhex lugaynaysa wadooyinka Norway iyadoona nasiib darro ilowday in wax yar ka hor laacibada Fartuun Brimo ayaa dib ula midowday daayirkeedii hore ee Faisal Hanad wargeysada ka soo baxay Biana ayaa qoraya in duqdan ay aad uga fiirsatay mustaqbalkeeda iyadoona go'aan ku gaartay inay si xafidato laacibkaasi ku faraxsan in laga caawiyo mushaarkiisa bilaa xidigta reer Canada ayaana iska diiday dalabyo waali ah oo kaga imaada Altis Klaaji ilaa ay ka doorbiday in baaca horta ay dib ula midowdo haliyeegeedii hore ee Faisal Hanad iyadoona haatan ku cadaadinaysa in miisaankiisa uu sare u qaado walow isna dhankiisa sulugsan yahay culeyska xidigtiisa taageerayaal badan oo isticmaala baraha bulshada ayaa ku maadeystay xidiga Habi Khaliif markii Facebook Live uu isticmaalayay si la mid ah Snapchat-ka 40 jirka sida wanaagsan ugu hadla lahjada Scottishka ayaan isku xabeejinaya tiro aan ka badnayn 60 qof oo online ah Xudur News ayaana qabtay in xilliga Facebook la unkayo uu wiilkan iskaabulnimada ku raagtay uu safar uga maqnaa Muqdisho walow jariiradaha qaar ay qorayaan in laacibkan kaamirada ka jecel shaqadiisa uu leeyahay astaamo uu uga sara mari karo xidiga rikoodkaas heesta ee qaaqaan kaas oo Facebook ka soo muuqday in ka badan xidigaha kale
joogdheraha kooxda SNTV Cabdicasiis Afrika ayaa isku dayay mustaqbalka inuu buuxiyo booska Daahir Isbitaal konton jirkan ku caanbaxay wareysiyada qasabka ah ee laga sameeyo kooxda qaab ciyaareedkeedu liitay ee shabaab ayaa bartiisa Facebook soo dhigay shalayto sawir xidigaha kooxda Damujadiid Mahad Salaad Yodowa isagoona ku tilmaamay kuwa faraxsan xilli taageerayaashoodu dhibtoonayaan cadaada Sports ayaana ku waramaysa in mas'uuliyiintan ay shaxaadka Sportska u diideen laacibkan inta dhaxa u weyn sawirkan idin muuqda ayaana ahaa mid kabtanadan ay safar xal raadina kaga soo laabteen ciyaartii derbi mudug ee barbaraha ku idlaatay markana u diyaar garooba xubintani baafinta waxaa la baafinayaa xildhibaan Xoosh Jibriil markii cid ugu wardambeysana wuxuu xariiftan ku jiifay guriga guura uunlaaye ee ku yaala magaalada Nairobi haddaba cid allaali cidii aragta duqaasi aan dhigin dhalada waxaa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska Professor Jawaari haddii uu codsigeena yareystana waxaad u sheegi kartaa in Cabduuli Gaas xildhibaanimo u soo xuli doono isagaa saxaafadda muuqiisa siin doone tababariye hore ee xulka qaranka Cabdiqaasim Salaad Xasan markii cid ugu wardambeysana wuxuu farmasoon uusan isu muujin kula dagaalamay kooxdii Cali Maxamed Geedi haddaba cid alaaliye cidii aragta duqaas dejiya shaxda kooxooseedkiisa waxaa laga codsanayaa inay inoo soo wariyaan naadigu ka taageero horyaalka dalka ama waxaad u geyn kartaan gabar reer galbeed ah bal inuu salaanta ka qaadayo in kale inaga fikirkiisa maskaxiyan cabiran doonee ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeeni kaftanka sportska waxaan si wada jir idinkugu talantaalinayay Cabdiqaadir Baasi waliba aniga Luul Jaalwa halku dhiga barnaamijkeenuna waa lagu xanto lagu xustaya ka horeysa intaan dib dan barnaamij ceenkan oo kala ka u kulmeen waanigii boos oo idin leh gaashankii noloma keeno gabagabada heesta barnaamijkuna waa doodban aan idin kala baxo fanaanada codka baxsan ee xawakeen iyo waliba dooqii wada jirka Nuurani Mukhtaar from Finland iyo waliba Abuukar Xasan Cabdilaahi from Germany daawasho wacan